waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan leeyahay afur wanaagsan inta afuran. waxaan rabaa halkan inaan dhowr qodob aan ka hadlo dhacdooyinkii isdaba yaalay maalmahan dhacayay ku saabsan. marka hore waxaan shacabka Soomaaliyeed la qaybsanayaa walwalka iyo walaaca soo maray habeenadii la dhaafay, khaasatan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo dhibka ayagu culayska ku dhacay iyo guud ahaan dareenka shacabka ay ka qabeen meel kasta ay joogaan xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku uu ku sugnaa. waxaan arkaynay hooyooyin caruurtooda dhabar ku sitoo qaxaya, waxaan arkaynay dhiilo colaadeed oo muuqata, waxaan arkaynay in culays uu ku soo wajahan yahay dalka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo fududeeyey arrintaas ayada ah kadib markii dadkii mudnaa inay go-aankeeda qaateen ay maanta qaateen. waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug oo go-aan geesinimo la qaatay runtii oo ka hor yimid muddo kororsigii. waxaan kaloo rabaa halkan inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo runtii go-aankaas taageeray kuna raacay in loo noqdo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar. runtii kaalin weynna ku lahaa in xiisadda colaadeed ama midda dhiilo oo dagaaleed ay hoos u dhacdo. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo qof kasta oo dadaalkaas ka qayb qaadatay oo isku dayday inay dhiiladaas colaadda yarayso oo ay joojiso wax alaali iyo wixii dhib keeni kara, barakac keeni kara iyo qax keeni kara intaba. hore ayaan u sheegnay in la iska celiyo ama la muqaawameeyo ama laga hortago kalitalisnimo nooc kasta ay rabta ha noqotee waxay leedahay cost ama qiimo ayay ku fadhisaa. waxay ku xiran tahay qiimaha la bixinayo hadda ayuu yar yahay, hadhow ayuu weyn yahay. waan ognahay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kiisa ku dhaqa magaalada Muqdisho inay qiimo bixiyeen. qiimahaas laakiin waxay ku bixiyeen waa inay diidaan kalitalisnimo, waa inay diidaan jidkii ay ku soo socdeen dimuqraadiyadda iyo is-ogolka iyo wadar ogolka iyo taladoo dhexda taalo 4 sano doorasho mar la qabto in laga weeciyo inay diideen. qiimay ku fadhisaa, qiimahaasna waa xanuun badan yahay. runtii taas inay u babacdhigeen oo ay qaateenna waa uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo qof kasta oo ka hor yimid muddo kororsiga oo ugu horeeyo aqalka sare iyo guddoonkiisa, oo ay ku xigaan dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, oo ay ku xigaan midowda musharaxiinta, oo ay ku xigaan bulshada rayidka ah, oo ay ku xigaan beesha caalamka. intaasoo dhan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxay ka soo horjeesteen muddo kororsiga ayagoo og caqiba xumada ay leedahay iyo halka ay ku dhammaanayso oo ah halkii xalay habeen hore aan taagnayn ayay inay ku dhammaanayso ayay ogaayeen oo ay ka warqabeen. intii maanta go-aanka lagu kala badbaado qaadatay oo hore saan u sheegay madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug iyo ra-iisul wasaarahana oo dhowr jeer ugu baaqnay inay go-aankaas ku badbaadi karaan dalka inay maanta qaateen aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. xilli xasaasi ay qaateen. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saraakiishii ciidanka booliska iyo militariga ee ka hor yimid muddo kororsiga, kuwii difaacay inay kala tiisnimo dalka ka hirgasho, kuwii ka hor yimid oo diiday in muddo kororsi sharci darraa la sameeyo, xildhibaanadii baarlamaanka dhexdiisa ka diiday dibaddiisa looga celiyo. dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin oo ay qayb ka yihiin halgankaas lagu diidanaa in waddadii siyaasadeed ee Soomaali ku socotay ee is-ogolka, tala guddoonka iyo doorasho 4 sano mar dhacdaa oo asaas u ah xasiloonida iyo geed socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya dadkii difaacay. aad iyo aad ayaan u mahad celinayaa. waxaan ku raacsanahay ra-iisul wasaaraha inay ciidamadu ku noqdaan xeryahooda, kuwii difaacayay kasoo horjeeday muddo kororsiga kasoo horjeeday iyo kuwii muddo kororsiga difaacayaba oo is hor fadhiyo kulligood ka wada tirsanaa ciidamada xoogga ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwan. waxaan ugu baaqayaa siduu ra-iisul wasaaraha ugu baaqay inay xarumahooda ay dib ugu noqdaan oo aan wada hadalkii siyaasadeed iyo doorashadii iyo dib u heshiisiintii iyo isku soo dhowaanshihii iyo hanaqaadkii siyaasadeed hore aan ugu soconnay si aan dib ugu noqono. waxaan rabaa inaan ugu baaqo, waxaa la ii sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu qabanayo shir jaraa'id. wuxuu haystaa fursad weyn oo shacabka Soomaaliyeed si nadiif ah oo dadnimo leh oo geesinimo leh uu ku sagooti karo, maadaama mashruuciisii muddo kororsiga ahaa oo xooggii iyo maquuninta ku dhisnaa oo fashilmay
taariikhdu wuxuu ku geli karaa inuu go-aan geesinimo la qaato oo shacabka soomaaliyeed khudbatul wadaaci ama khudbadii uu ku sagooti lahaa oo ka dhigta ayaan kula talinayaa. intii uu kasii tali lahaa qalalaase iyo dhibaato kale iyo in la sii galo intii uu noo geystay ayaa ku filan ayaan leeyahay. waa in salaamaya markas shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.